kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Runmal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan geega Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanaysa waxaan ku soo gudbin doonaa xaaladda bariga dhexe oo faraha ka baxday Iran oo sida roobka ugu durusheynaysa qaybo kamid ah saldhigyada waaweyn ee ku yaala bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada Khaliijka Carabta saldhig weyn oo ku yaala dalka Sacuudi Carabiya oo la soo tubinayo in uu gubanayo xilli Iran la sheegay inay ku garaacday gantaalo waaweyn Bahrain ayaa sidoo kale kamid ah dalalka ay Khaliijka Carabta ay Iran bartilmaameysatay saacadii u dambeeyay diyaarado dagaal oo la soo riday iyo sidoo kale duqeymo culculus oo ka dhaxay bariga dhexe muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa qodobada soo dhameystiran haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inuu dhigan balilkana fulas ay ku soo gaaraa muuqaalada kale xiga haddii aad subscribe inoo tahay inoo share garay laakiin oo saar si uu gaaro asxaab badan waad ku mahadsantahay daawashadaada aynu ku bilaabno waxaa intooda badan xilligan ololkoodii uu baxaya qaybo kamid ah wadamada Carabta oo Iran gantaalada sida roobka ugu dul rusheysay kadib markii markale uu dib u soo ifbaxay dagaalka ka dhaxeeya Iran iyo sidoo kale Mareykanka waxay wararku ay tilmaamayaan in Iran saacadii la soo dhaafay ay duqeymo ba'an ka geysatay gantaalana ay ku garaacday ee Sacuudiga gantaalada qaarkood ayaa la sheegay inay gaareen dekedda Sacuudiga ee dhanka badda cas waana goob ay Xuutiga indhaha ku hayaan hadaba Iran ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in ay gantaaladeedii iyo sidoo kale weeraradeedii ay si laba jibaarto maadaama ay ku sheegtay kuwan inay yihiin kuwo bilow ah isla markaana ay u dhiman yihiin dagaalkeedii tooska ahaa wararka ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in Iran sidoo kale ay beegsatay dawladda Kuwait waxaana la sheegay in warshadii korontada iyo biyaha macaanka ka sifeynaysay cusbada ay soo gaartay dhaawac ka dhashay weerar la sheegay in Iran ay ka fulisay saaka sidoo kalena ceel shidaal oo qadar leedahay sidoo kale la soo tabinaya in xilligan uu gubanayo Bahrain ayaa sidoo kale waxa ay gantaal ugu durusheynaysaa sida roobka Iran markaan waxay u muuqataa mid laba jibaartay weeraradeedii tooska oo ay la bartilmaameysanayso wadamada Khaliijka Carabta iyo sidoo kale bariga dhexe waxaa sidoo kale xaaladda bariga dhexe xilligan ay tahay mid faraha ka sii bixaysa maadaama ee Mareykanka uusan joojinaynin weeraradiisa sidoo kale Iran dhankeedana ay wado weeraradii ay la bartilmaameysanaysay goobaha ay u aragto inuu muhiim u yahay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil intuba sidoo kale Iran war qoraal ah ay soo saartay subaxnimadii hore maanta ayaa waxay ku sheegtay inay garaacday ama bartilmaameysatay goobo muhiim ah oo ku yaala Kuwait, Bahrain, Jordan iyo Sacuudi Carabiya waxaana ugu daran duqeyntii ka dhacday Sacuudi Carabiya taasi oo malaayiin dollar ah halkaasi ay ku waayeen waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in Iran wali ay sheegtay inay wado dagaalkeedii iyo sidoo kale argosiga ay u argudeysay hogaamiyihii ugu sareeyay Ayatollah Ali Khamenei oo ku geeriyooday dagaalkii ama bilowgii dagaalka oo ay qaadeen Israa'iil sidoo kale Mareykanka sidoo kale wadamo kale oo kamid ah amaba Xuutiyiinta hadii aan soo qabto ayaa dhankooda ku hanjabay in Iran ay garbaysiin doonaan isla markaana duqeymo culus ay ka geysan doonaan Israa'iil oo horeyba markii dagaalkii hore uu u socday ay duqeen sida roobka ugu durusheynayeen dhankooda waxaa sidoo kale jira in Iran ay sheegtay in la soo bixi doonto hubkeedii cuslaa oo ay sheegtay inay gubi doonto saldhig walba oo Mareykanka uu leeyahay kadib markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii xabad joojinta ee 60 maalmood ay wada galeen weerarka Iran ay ku qaaday Kuwait ayaa waxa uu sababay dab ka kacay xarun koronto iyo sidoo kale xarunta biyaha lagu sifeeyo muuqaale iyo sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa tilmaamayay heerka qasaaraha intuu la eg yahay maadaama dabku uu ahaa mid bixinayo olol aad u xoogan dadkan ay ku mashquulsanaayeen daminta waxaana sidoo kale muuqaalada iyo sidoo kale sawirada ay muujinayeen heerka baaxadda ee qasaaraha soo gaaray Kuwait iyo sidoo kale saldhigga Mareykanka oo ku leeyahay halkaasi waxaa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in Iran ay ugu digtay dalalka Khaliijka Carabta in Mareykanku u ogolaadaan in dhulkooda uu ka weeraro gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka Iran ayaa sheegay in haddii uu Mareykanka uu adeegsado dhulka dalalkaasi in uu weerar uu ku qaadi doono oo ay halkaasi ka bixin doonaan qiimaha culus iyo sidoo kale
ay u hayaan wanaaga oo ay sheegeen haddii hal gantaal laga soo tuuro wadamada khaliijka carabta ay ugu bedeli doonaan 100 gantaal iyo ka badanba. dhinaca kalena Mareykanka ayaa waxa uu duqeymo uu ka fuliyay gudaha dalka Iran. war qoraal ah oo ka soo baxay Iran ayaa waxa lagu sheegay in la burburiyay ilaa iyo 7 buundo oo ku yaala gudahaasi. goobaha buundooyinka ay ku yaaleen ayaa waxa la sheegay Bandar Abbas iyo Bandar Qamir oo qodobadaasi wixii kale ku soo kordha muuqaaladeena xiga ayaad ku daawan doontaan. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambalelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maadsanta daawashadaada.